deyn cafinta Soomaaliya oo in ka badan 100 dal ay ballan qaadeen lacag gaaraysa 334 milyan oo dollar si deynta looga cafiyo Soomaaliya. Sidaas waxaa shaacisay hay'adda lacagta adduunka ee IMF. Christine Lagarde, agaasimaha guud ee IMF, ayaa sheegtay in tani ay hoos u dhigayso deynta guud ee lagu leeyahay wadanka dhaca geeska qaaradda hodanka ah ee Afrika. Iyadoo soo saartay war-saxaafadeed, Christine ayaa ugu mahad celisay dalalka yaboohay deeqda lacageed. IMF ayaa horaantii bishan Febraayo furtay barnaamij lagu maalgelinayo deyn cafinta Soomaaliya. Qaanta lagu leeyahay wadankeena Soomaaliya waxay gaaraysaa 5.3 bilyan oo dollarka Mareykanka.